haddii aynu qiso yar soo qaadano magaaladan aynu joogna Hargeysa ina yar baa moobilka ku gaalowday radeeg hadda moobilka oo magaaladan inay joogtaa ayay ku gaalowday diinta islaamka ka baxday English taqaanay waalidkeedii waxay ku tiri waxaan u baahanahay jaamacadan dhigtaaye internet xoog badan inaad ii soo geliso hooyadeeda beedda ku tiri sidii casharadii macalinku noo soo dirayo si fiican aan uga shaqayn karo baaritaan wanaagsan aan ku soo samayn karo waayo dadkiina hunguri laga raaca oo qof waliba wiliye gabadh wuxuu isleeyahay balkan ingiriisida aad hawl liqliqo si uu lacag beedhan u soo daato quraanka aad hawl liqliqo oran maaya si uu alla kacabsi u soo daatee mid waliba wuxuu leeyahay bararta taa u badin cilmiga maadiga ah law adduunyo doonay kaasuu leeyahay ka dharki inta internetkii uu ka dharkiyay waalidkii iyaduna waxay la xiriiray qolo Norway joogto mission waxa ay kuwa diinta Kristaanka faafiya waxay siiyeen dhoofkii laga raacay waxna way la soo yara qaadeen waxay dhahay si arrinkaaga meel loogu tiiriyo de waxaan u baahanahay inaad madaxdayada la xiriiro hay'adaasanu nahay waxna waanu ku bari jaamacad waa ku loofinaynaa ma iska aqbalaysaa markaa xiriirka iyaga intaa leeg si u sii wadeen waxay dhahay waxaan kula xiriirin doonaa wadaadka iyaga waa wadaad Kristaan ah waa boobkii kaniisadda Scandinavia jooga boobkii baa lala xiriiriyay diinta islaamka oo ka saaray markii ay ogaadeen godkii ay la doonayeen inay ku dhacday ila godka weyn lagu ridaa waa gaalnimo ilaahay ka maaqalay waana godka weyn shaydaanka iyo saaxiibadiisa sharwadeen ay qofka la doonaan إلهي بأحر كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين والشيطان كي يقف كي قال لما أصابن لغا مركو قالوا بين يدي بريبا كاه أو نار تكوب صلاي waxay dhawa ku dhoofinayna hadaba passport baan laga kaaga sameeyna safaaradda Ethiopia kale tiyarado sii socotada ayuunbaa maalmihii ugu dambeeyay waalidkeed oo hooyadeeda ayuunbay yara murmeeyeen islaamkii unbay durtay iyo diintii islaamka iyo nabiga aad sheegaysaa ma ahayn ka dumarka dulmiyay islaamka aad sheegaysaa ma ahayn ka waxa dumarka ku sameeyay wixii yara lagu shubay wixii xumaay lagu shubay qaar kood soo ka bacday sida bulaacada ayay soo neeftay wixii ila gaalnimadu waa qurun إنما المشركون النجس قرآن كابو شاقين النجاس يقولون تاي يخبث بركة يقول عادي صار نفتر إن أنت هذه هو يدد وحي عرقت إن أنا إن أنت هاي إربادي كل مدنتا هو يسلنت هاي عرقت فتنوى وحيوي على أبيه إنما ذي بأولي علي إن أنت لحضوري سيد بابا الله ورئيستي بركة وحالها علي حقتي بالله علي خاتكينا وعلى راعي تدرقي على بقاعي iyadoo sii guuraysada oo gaalowday xagee laga helay dibadba uma baxday inantu waalidku wuxuu lahaa inantu wanaagsan oo shuucdo naga saaxiibadaba ma lahayn inanteeda halka casharada bay ku urursan tahay oo habeenkii oo dhan raajacda iskuul waa jaamacadda iyo guriga waxba uga dhaxeeya cid bay isbaraaca ma oga halka ay dadka raacdo ee screen-ka yar ka soo baxay kaba warayso sidii baa dabeedna inantii jaamacaddii lagaga saaray diintii islaamka lagu soo celiyay dadkii xumaan